musharaxa golaha deegaanka degmada Berbera ayaa magaalada Dacarburuq ee xarunta Laaskeel ka furay koobka tartanka Rabadaanta oo ay soo qaban qaabiyeen gudida ciyaaraha ee degmada Laaskeel. Ugu horeyn waxa furitaanka koobka Laaskeel ka hadlay Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil oo kamid ah gudida soo qaban qaabisay koobkan. waxaanu u mahadnaqaynaa Ilaaha subxaanahu wa ta'aala inagu kulansiiyay mid kamid ah garoomada degmada Laaskeel inagoo furayna koobkeenii sanadlaha ee bisha Ramadaan ka wasaarad ahaan waxaan u mahadnaqaynaa xildhibaan Jaamac Maxamed Cabdi Mustafa Ibrahim Cismaan iyo intii kale ee wasaarad ahaan nagala shaqeysay sidii uu qabsoomi lahaa koobkan oo quruxdiisa iyo milgihiisa aynu ku arkayno indhaha ciyaartooyda iyo nidaamsan ee uu maanta ku biloomay ama aan ku iba furnay garoonka degmada Laaskeel waxaan ciyaartooyda ka soo qayb galaysa koobka aan kula talin lahaa ama aan ku baraarujinayaa inaynu koobka sida quruxda badan milguhu ku jiro aanu eeba furnay inay nagala shaqeeyaan horumarkeeda maanta waxaynu ka shaqeynaynaa waxa weeyaan wadantii degmada waxaynu horumarinaynaa waxa weeyaan isboortigeeni. Geesta kale musharaxa golaha deegaanka degmada Berbera Jaamac Maxamed Cabdi Jaamac Macaf oo qayb muhiim ah ka qaatay hirgelinta koobkan ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay u ciyaaraan si anshax iyo xadaarad ku jirto waxaana hadaladiisii kamid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan doonayaa in dhammaan inaan uga mahadnaqo dhalinyartii soo abaabushay koobkan heer degmo ee sportska degmada u qaabilsanaa dhalinyartaasi juhdi iyo dadaal badan bay sameeyeen koobkan iyo inuu suuro galo anigu waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo waxaan doonayaa koobkan aad ciyaaraysaan inaad si sharaf leh oo karaamo leh oo dhalinyarnimo ku jirto oo ciyaartaas iyo ujeedkeeda aad samaynaysaan horta inaad u ciyaartaan oo isku ixtiraamtaan oo la ilaaliyo akhlaaqda taa aad baan idinku dardaaraya hal qodobna aad baan idinku dardaaraya arrimo doorashooyin baa waddanka ka jira waxaad mooddaa doorashooyinkii iyo inayse saameeyeen dadka degmooyinka iyo dhalinyarta in la dhiirigeliyo wayse saameeyeen waxaan arrintaa idinkaga wacyigelinayaa caqligiinna iyo dadka caqligooda midna ma qaado in dadka dirays yar iyo koobab yaryar iyo garoonno laga caawiyo codkooda inay ku bixiyaan xor baa tihiin annagu haddaannu ka mid nahay kuwayda caawiyey kama turjumayso inaad noo codaysaan laakiin waxay ka turjumaysaa in laydin dhiirigeliyo miduun baan laakiin doonayaa inaad xasuusnaataan rabadaan tani maaha rabadaantii koowaad ee koob la qabto ama aragtaan rabadaanno hore ayna soo maray may dhicinoo may suuro gelin xildhibaanada iyo dadka imika rooraya qaar hore u sharaxnaa baa jira oo dhulka hore u joogay qaar xilal ka duwan hayaa jira dhulka hore u joogay may suuro gelin dhalinyarta in la soo dhex galo iyo in loo yimaado iyo in la dhiirigeliyo qodobkaa waxaan idinkaga dardaarayaa haddaad dhalinyarta tihiin caqligiinoo xora aragtidiinoo xora idinkoo fahamkiina haysta inaa horta arrinta doorashooyinka iyo isboortisku saamayn iskuma leh inaa cidda adlaale ciddaa dan moodaan inaa arrintaa uga codaysaan oo idaan nigis iyo garan iyo kubad iyo kabatoona inaydaan cid ugu codayn taa waan idinku dhiirigelinaya annakuna ma nihin oo anigu kama mid ihi cidda doonaysa in nigis iyo garan iyo kaba loogu codayo kama mid ihi anigu marka waxaan doonayaa arrintaa dhallinyartu inay wacyigaa guud ahaan isgaadhsiiso waayo wakhtigan dadku kama turjumayo qofnimadoodii saxda ahayd ma wada hayno arrintaa waxaan idinkaga dhiirigelinayaa inaad ciddaa sax moodaan arrimaha doorashooyinka codkiina ka siisaan duruuf iyo abaaraa iska jira roob baa maanta ilaahay Dacarburuq ka shubay waxaanu rajaynaynaa meelaha kale nala midka ah ee aan roobku helin in iyakana ilaahay roob u shubay roob helaan baynu ilaahay u rajaynaynaa dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin kooxda reer Laasana aad baan soo dhaweynayaa gaar ahaan qoladan kalena aad baan soo dhaweynayaa iyakana sidoo kale dhammaantiin aad baan idinka mahadnaqayaa waxaanu jecelnahay ciyaar fiican ciyaartaan aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin